xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka Congress-ka dalka Mareykanka lagana soo doortay Minnesota ayaa shaacisay inay aqal gashay. Ilhaan ayaa barta ay ku leedahay Instagram-ka waxay soo dhigtay sawirka iyada iyo saygeeda cusub ee Tim Maynard iyadoo ku qortay halkaasi waan guursaday waxaan hore ugu ahay lamaane siyaasadda haddase waxaan ku nahay lamaane nolosha waa barako waana Ilaahay mahadi ayay tiri. Tim waxa uu ku dhashay dalka Mareykanka waxa la sheegay inuu dhashay sanadii 1981 waxaanu wax ka bartay jaamacadda New York. Waxa sidoo kale la sheegay in 2001 ilaa 2002 uu wax ku bartay jaamacadda KwaZulu-Natal ee ku taala dalka Koonfur Afrika. Waxa uu soo bartay culumta siyaasadda oo uu ka qalin jabiyay sanadii 2003 wixii inta ka dambeeyayna waxa uu la soo shaqeeyay hay'adda la yiraahdo Alliance for Justice ka hor intii aanu ku biirin shirkadda loo yaqaan E Street Group. Waxa uu soo maray guur hore waxaanay wada joogeen oo qabay xaaskiisii hore loo rajin Beth laakiinse hadda way kala tageen. Tim waxa uu ka tirsan yahay shirkadda E Street Group oo ah shirkad inta badan ka shaqeysa istiraatiijiyadda ololaha doorashooyinka, dejinta qorshayaasha, musharaxiinta doorashooyinka iyo sidoo kale shacabixinta. Inkastoo aan la garanayn waxa uu shirkaddaasi uu ka shaqeeyo uu ka yahay ama title-ka uu hayo, haddana waxa la sheegaa inuu la soo shaqeeyay Ilhaan Cumar. waxa uu Ilhaan Cumar u qaabilsanaa dhanka ololaha doorashada waxaana hadda la sheegay inuu ahaa markii ugu dambeysay uu guursaday la taliyaheeda arrimaha siyaasadda. Sidoo kale waxa la sheegay Tim inuu ku takhasusay sidii ay xubnaha Congress-ka musharaxiinta u tartamaya xilalka hay'adaha samafalka iyo sidoo kale ururada siyaasaddu ay u heli lahaayeen lacag tabarucaad ah. sidoo kale shirkadda uu ka tirsan yahay loo yaqaan E Street Group ayaa qabata hawlo ay ka mid yihiin shacabixinta, xayeysiinta, qaabaynta, cilmi baarista iyo sidoo kale dhaqaale ururinta. Guddiga doorashooyinka heer federaal ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in Ilhaan Cumar ay lacag dhan $230,000 Mareykanka ay siisay shirkadda uu Tim ka tirsan yahay loo yaqaan E Street Group tan iyo sanadii 2018. lacagahaasi oo lagu qaban jiray la talin dhanka siyaasadda iyo sidoo kale istiraatiijiyadda ololaheeda doorashada. Tim waxa uu sidoo kale la soo shaqeeyay siyaasiyiin badan oo laga soo doortay Minnesota kuwaas oo ay ka mid yihiin Keith Ellison oo hore u soo qabatay xilka Ilhaan ay hadda hayso. Tim iyo xaaskiisii hore ayaa kala tagay sanadii la soo dhaafay kadib markii ay sheegtay inay ku tuhmayso inuu xidhiidh la leeyahay Ilhaan Cumar. warbaahinta Fox News ayaa ka waramaysa isla markaana sheegtay in xaaskiisii hore Tim ay ka dalbatay furniin kadib markii ay ku tuuntay in saygeedu xidhiidh jacayl la leeyahay Ilhaan Cumar. sidoo kale bishii Oktoobar sanadkii hore ayaa Ilhaan Cumar waxay sidoo kale ka dalbatay furniin saygeedii hore loo rajilay Axmed Xirsi. 3 carruur ayaa u lahayd. Xirsi ayaa dhowr bil kadib ku aqalgalay Soomaaliya. xiriirkeena guur ayaa u burburay si aan ka soo kabasho lahayn. sidaasi waxaa lagu sheegay dacwad ay maxkamadda Minnesota u soo gudbisay Ilhaan. waxay Ilhaan sheegtay inay raadinayso sharci ilaalinaya carruurteeda waxaana maxkamadda weydiisatay inay ogolaato goob sharciga waafaqsan oo si wadajir ah loogu hayo 3 isu dhaleen.